السلام عليكم kusoo dhawaad mar kale channelkayga maanta waxaa rabaa su'aal inaan ka jawaabo su'aashaas oo leh maamada ilmaha nuujinaysa hilib ma iska ridi karaysaa diet ma samayn karaysaa waa su'aal zaid u fiican laakiin nasiib xumaan khibrad uma lihi su'aashaas laakiin meesha uguma tagino khibradayda meesha ima dhigino research baa sameeyay wax badan oo raadiyay dad aqaan waa weydiiyay dad aqoonin waa weydiiyay YouTube iyo Google na waa la kaashaday markii ugu dambeysay maama la dhaho ruux yaqaan oo Kelimama weydiiyay website-keedana iyo linki website-keeda isiisay website-keeda eega website-keeda description linkiga hoos dhigi doona ruuxi rabo English ku fahmay meesha ka fiirsado ruuxi kalena hadeertaan ugu jawaabay su'aasha pointyaal badan bay dhigtay 4 point ya sameysay oo ku saabsan maamada cunuga nuujinaysa sidii hilibka iska garadi lahayd halkan aan ku qortay pointiga koowaad waxay tiri at least maamada inay cunuga 3 bil ilaa 4 bil inta u dhaxayso inay ay sugto cunuga inay sugto ilaa 3 bil 4 bil intuu gaarayo meelo kalena arka waxay leeyihiin ilaa 2 bilood enough weeyaan laakiin waxaa 4 bil 3 bil cunug inuu gaaro weeyaan ay tiri si cunuga wax ku filan uu helo maamadana recovery u sameyso pointiga koowaad waa ka pointiga labaad waxay tiri waa inay iska ridaa ruuxa ilmaha nuujinaya inuu iska ridaa 1 kiilo wax 1 kiilo ka badan inuu iska rida ma aha because isbuuci saawad ognaa 2 kiilo ilaa 3 kiilo qofka bini'aadamku iska ridi karaa marka waxay leedahay 1 kiilo inay iska rida way ka badan ma aha because waa ruux nuujinaya mid kale saawad ognahayna maamada ilmaha nuujinaysa extra calorie gubeysa ayadoo training greening extra calorie gubeysa because ilmaha nuujinaysa su'aasha saddexaad waxay tiri calorie cunaysa cuntada ay cunaysa ma aha inay hal mar wada rido kiilooyin badan hal mar cuntada ay cunaysa inay hal mar wada yareysa ma aha saawad ognahay hilibka marka iska ridayso caloriegaaga cuntada maalintii lagu talagalay jirka u baahan yahay inaad yareysid doonaan laakiin maamada wax nuujinaysa uma baahno hal mar inay wada rida ma aha hadii 1800 cuna jirtay inay 500 hal isbuuc jirta ma aha waa inay tartiib u jirta hadii 3 kun cuna jirtay waa isbuucana jirta 200 calorie 300 calorie hada sida calorie loo xisaabiyo aqoonin description ka dhigi doona website loo tiri calorie jirka uu baahan yahay point ugu dambeeya haday imaado oo point ugu muhiimsan ah sida wad ognahay marka hilib iska ridi rabtid carbohydrate jirka uu baahan yahay waa inay yareysaa at least 50 grams oo carbohydrate bariisi pastada ina ka dhigtid bariiski pastada cunaysa aad u yareysid dadka ee dhahan ana sida aan sameeyay mar badan ay shaqeysay laakiin waxa la leeyahay maamada ilmaha nuujinaysa uma baahna sida ayada different waa dadka ka duwan tahay ma u baahna inay carbohydrate ka yareyso carbohydrate inta cuni jirtay cunaysa laakiin total calorie yareynaysa cunta carbohydrate wax ka yareynay protein wax ka yareynaysa wixii idil wax ka wada yareynay ma ahan ina carbohydrate kali hoos u dhigtid wax kalena aad haysid marka afartaas point aan sheegay meel ku qoro oo 4 point muhiim ah website-ka hadda ka soo xigtay akhbaartaasna description ka dhigi doona hadda u baahan tahay dad badan waxay dhaheen meesha akhbaaraadka soo xogatid rabnaa marka wax walba aan sheegay ma wax maskaxdayda kala imaaday maamo uur lena ndiraga aqoon badan uma lihi laakiin description ka dhigi doona meesha ay kala socon doontaan